أنا إذن ياري أو إيربال والدين تالي ويا مشان تجي ده صورة قاركود يساقوا أركتين وليش هو صارك عيد ما أنت لبعضه عيد ما أنت كود هالكان كتقني ما أنت لبعضه عيد ولا سو عيدني أنتو ده مش جوكتاه نول بين أو قوس كيسين ولا صهاد العكار أي كويب سدانا وصور رابي ما أنت عم بريم الدود هنا أي صو قلان أي صهاد لان والدان هاي أنا أبان هاي عرور لأوان هاي وقرن كرا وحا إيا معناها أي كفردين حنونك أي ليهن عرورتا يوم حوا يقولوا مركان كور هاي والدك وحال إذا الميس وحوج علي هاي متك مقن أي أنا كور هاي أما متك حنونسان مركز أو سريرة الجيفو أي وجع علي هاللي يراه مركا آدي أيان أدريما وحا أصوام مرتين إذن كدالك حرين هاي وإن دال كان شباب كساران dadka Soomaalidana ay sharaftooda karaamadooda soo celiyaan niman aad u maraysid inay aad iyo aad uga go'an tahay oo ku dhaaranayo oo u taagan waayo oo markay hadlayaan wajigooda shucuurta ka muuqata aad yaabaysid markay kula hadlayaan marka Ilaahay idankiis guul kasta guusha Ilaaha keena guul kastana waxay la qiimo loo horay leedahay geesiyaalaha u dhinta dada u rafaada dada u xanuunsada kuwa axibba ah oo wax jeclaay ayaa waxay jeclaayeen waaya kuwa la jeclaayaa lagu waayaa marka guushu waxay leedahay qiimi loo bixiyay leedahay Ilaahay waxaan ka baryayaa inta hadda la soo maray oo walwal iyo walbahaar ahay in qiimihii guusha Ilaahay idankiisa aanu bixinayn inuu intaas noqdo oo wixii hadda ka dambeeyo nabad iyo badbaado iyo barwaaqo aan u baxnaa diyaaliira marka walaalahay waa maasantihiin waalidiinta kale oo dhan la igu salaamo inta aad qabtaan oo kale qabaan dareenka aad qabtiin iyo waxa aad cabiraysan inay wada cabiraan waa ogyahay boqolkiiba boqol la igu salaamay ilmaha waa ilmahaygi Ilaahay idinkiis waa ka shaqeynay waana ka soo shaqeynayna inta dhimanna waana keenayna diyaaliira waxaan maanta aad ugu mahad celinayaa madaxweynaha maalintan arkay la yiri Xasan Sheekh Maxamed wuxuu u duulay Eritrea waa iiga dhamaatay abdi baa la yiraahdaa wiilkaygu inuu sariirta jiifay la ahayd geeriya nolol ma haynin mar labaad baan ku mahad celinayaa oo dadka maanta aniga gooni baan ka waan faraxsanahay wiilkaygu saako ila hadla wiilkaygu maanta ila hadlay ma qarinayo malaa'ig baa garbayga saaran kelmaddu yiri madaxweyne waan ku sheegay hadalkii iigu horeeyaan oo yiri wuxuu yiri hooyo maanta waan faraxsanahay anoo kula jooga ila mid tahay waxaan noo yimid madaxweyne bila aadan ah والله سكلمت كلا يدين صلاة عصر كوي دورنته. إيد يدا كين كمان ناقان بقول كيف بقول إيد نوع ما حسنته أثر كون هرت مريل لك ساره حقيقو ما يبالي أولادس سقالون يكودي ما دي دجال دي بربوران دجال كي أهل لي إسكول واي لانك إسكول أرضون كأساسي ونجدهم أدي ولا برتي ونضلني لا ما أدي ولا برتي جامعة أدي هكوبيدي حتى أنتي ويديدو هأرجع ونجدي أديك السنة كين مهيني جيكو كبلاوت ونضلني لكن أديك الدفاع عيا إيد ما حسنت خير ده أنا والله كوبا كرماء إلهي ما يكون كتوغان الصومالي هذا النبت كوالي قالنت تاك كنغتي إلهي نكي جرب قالي ونون نكي جرب قالي إلهي كين كتوغان إلهي الشرف مدعوينها وين الشرفي نبي الله محمد بإلهي وحكيره فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك نبي محمد صلى الله عليه وسلم نحريص ربي حقي كأهاتي بعد أوجر عدي بنو آدم كاس يدتك ولا تشوغي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم حداد أهان لهيد مد شافي هو قللا الحمد لله الله إلهي ما أدي سواي أنت مالك سفر حد بدنا إيماني إن شاء الله الله وسلم خير الله وينا رحمة يضمير ضد النمو وإلهي قلبي سوق لي أيون نوجد العي نوجد دير نحي صدع سنة كبعدينه
uu noo suurto geliyey inaan hor fadhiisanno madaxtooyada weligeena kolleyba anugu aana soo gelinna uuna soo geliyo isagoo weliba ilmaheenna intaas aan raadinayno xog inooga wada towfiiqdan allaha ku waafajiyo saddexdii aan kugu duceeyana ilaahay ha kugu aqbalo xilka aad haysidna ilaahay ha kugu ceeb tiro annagoo dhanna raciyo fiican allah inaga dhigo madaxda allah inoo hagaajiyo shacabka iyo raciyadana dad madaxdooda ka dambeeya oo wixii xaqa ku raaca allah inaga dhigo